magacayga waa Hodan Xuseen saalkan daran waxaa imaaday adana muddo sanad ka hor ah anoo xanuunsan kaliyahan ka cabanayay waxaan la kulmay dhakhtar Caraale dhakhtarka kaliyaha oo Dalmar wuxuu yidhaahday kaliyaha dhaqitaan waaye waa ka madax adeegay Hindiyaan tagay Hindi markaan tagay sidoo asagu dhahay la dhahay muddaan soo joogay waan ka soo laabtay waxaan ku tashanay in la soo celiyo oo dhakhtarkayga iyo wadankayga aan soo laabto xiriirka istaalkayga haddana u soo laabtay si fiican la igu soo dhaweeyay haddana waan baxay Masran aaday 6 cisho ku maqnay anoo la dhaqinin waxba waa ka fahmi waayay waxna iima soo qabanin haddana istaalkayga ku laabo la dhahay anoo nabad qaba imaaday si fiican la igu adeegay xumaan ma jirto waxaan wanaagin kala maqlin dhakhtar wanaagsan waaye marka alxamdulillah ilaa noo nimeeyay bukaankan si fiican loogu adeegay istaalka intay nafta ugu jirtana insha Allah waxa meesheeda wadankayga dhakhtarkayga kalsoonaana waa ku wacyigeliyaabo waxa ugu baaqay wadankoodii dhaqaatiirtooda inay ku kalsoonaadaan dalkooda dhaqaatiir yaryar oo wiilal yaryar joogaan oo maasha Allah Dalmar waxa joogo Dr. Caraale joogo inay ku kalsoonaan dadkana waa ku wacyigeliyaabo oo qofkii kaliya loo arko waxaan la dhahaa imaado dhakhtar hadda shalo ugu dambeysay maamo kaliya fariisteen intaan keenay wax ka keenay oo yiri ha lagu dhaqo marka ku wacyigeliya qofka arko dalkooda joogaan dhakhtarkooda ku kalsoonaan dhakhtarka Hindiya iyo Caraalana waxba isma doorshaan isku mid leh waay wuxuu Caraale sheegaya shaqaalaha maamulka aad u mahadsanyihiin gaar ahaan waxaan mahad celinayaa Maxamed oo walaalkeen aan muslim ah oo Pakistaani ah gabadheeda oo Fadxa دكتوركي oo ah Caraale maamulka guud istaalkan oo mahadcelin Dalmar Specialist and Teaching Hospital. Higsigeenu waa caafimaadkaaga.